ku soo dhowaada sheekada sacaaga gowrac si aad horumar u gaartid oo la xiriirta wiil dhalinyaro ah oo xikmad noloshiisa uu ku horumarin karo weydiisanaya nin xikmad badnaa oo xilligiisii dadka talooyin wax ku ool ah siin jiray waxayna ku bilaabanaysaa sidaan waxaa jiri jiray nin xikmad badnaa oo dadku talo iyo tacliin u raadsan jireen wiil dhalinyaro ah ayaa u tegey waxa uuna weydiistay xikmad waxtar u leh adduunkiisana uu wax kaga qabsado xikmad badane waxa uu hubiyey wiilka in rabitaankiisa xikmadda tahay mid ka dhab ah markaas kadib ayuu wuxuu la galay socdaal kuna yidhi anaa ku tusaya waxa xikmaddu tahay ay inakeen isoo raac waxaan u baxaynaa safar aan kugu soo barayo xikmaddii aan kuu sheegi lahaaye isoo raac maalmo haddii ay soconayeen waxay ugu dambayntii ku hakadeen tuulo yar kolkaas baa ninkii xikmadda badnaa waxa uu u sheegay wiilka inuu raadiyo reerka ugu saboolsan tuulada ay ku hakadeen muddo kadib ayay arkeen guri cariish ah oo tuulada guryaha ku yaalla ugu baaba'san waxaa guriga dayrkiisa ku xidhan sac reerka guriga lehne waxa uu ka kooban yahay 8 qof oo dhammaantood ka shaqeeya sacaas mid lisa mid caws u dhiga mid moorada uga shaqeeya iyo mid dhaqaalayntiisa kale u xilsaaran xikmad badane waxa uu ku yidhi wiilkii caawa reerkan baan la baryaynaa reerkii waa soo dhoweeyeen martida u timid iyagoo ka cududaartay in sacaas caanihiisa ma ahane aysan wax kala hayn wixii ay haysteen ayay la wadaageen xikmad badane waxauu reerkii u sheegay inay gudoodi baxayaan oo socod dheer sugayo waana nabdeeyey reerkii maadaama aysan is arkayn subaxii intaan qofna kicin ayuu kacay wuxuuna u leexday mooradii markaasuu inta bilaawo la soo baxay sicii gowracay wiilkii ayaa qayliyey oo yidhi sacaa keliya ayaa reerku leeyahay ee sidee uga gowrici kartaa xikmad badane qayladii wiilkaa dhag uma jalaqsiin ee hawshiisii ayuu watay kolkaas ayaysan qarla'aan gudoodi socdaalkoodii ku sii wateen degaankii ay ka yimaadeenna u noqdeen 1 sano kadib ayaa xikmad badane wiilkii la ballamay markii la gaaray xilligiini wuxuu ku yidhi inakeen waan safraynaaye waxay yimaadeen tuuladii uu saca reerka kaga gowracay marka ay meeshii yimaadeen ayaa wiilkii garan waayey gurigii inkastoo goobtu tahay meeshii uu ku ogaa guriga cariishka ah waxaana beddelay guri cusub oo dhagax ah kuna hor taallo beer aad u ballaaran oo dadka jooga mashquul yihiin gurigii ayay yimaadeen oo reerkii nabaadiyeen waa la isgartay oo la iswaraystay reerku waxay u sheegeen wiilkii iyo xikmad badane in habeenkii ay ka tageen subaxii mid inkaar qaba uu sacii ka gowracay in ay maalmo barooranayeen dariskune u soo gurmaday tacsi kadibna inay garowsadeen inay u baahan yihiin in noloshooda isbeddelka ku yimid ay ka faa'iidaystaan oo wax hor leh qabsadaan waxay go'aansadeen in ay beer tabcadaan maadaama ay qoys ballaaran yihiin abuurkiina waa soo deenqaateen xilligii ugu horreeyey markii beertu u soo go'day waxay bixiyeen wixii dayn lagu lahaa waxayna iib geeyeen wixii u haray kadib markii ay la hareen abuur iyo soor ay xilliga dambe ku sugaan xilligii labaad beertii waxaa ka soo go'ay midho fara badan badeecaddii ay iib geeyeen lacagtii ay ka heleen waxay ku dhisteen guri waxayna qorshaysteen inay soo gataan lo' badan si ay caanaha uga ganacsadaan waxayna yidhaahdeen inkastoo oo markii hore aanu aad uga baroorannay gowracaaddii saca haddane waagii dambe waxaannu ogaanay waxa horumarka noo diidanaa inuu ahaa saca keliya oo aannu ku mashquulnay markaa kadib xikmad badane waxa uu wiilkii ku yidhi xikmadda nolosha lagu hormariyo waa adigoo sacaaga gowraca qof walbane waxa uu leeyahay sac ka hor taagan inuu himiladiisa gaari maysid himiladaada ilaa aad sacaaga gowracdid waxa aan ka faa'iidi karno sheekadan ayaa ah inuu jiro qof walba wax ka hor taagan inuu horumar gaaro cududaarna uu ka dhiganayo haddaba si aad horumar u gaartid fakar oo ka tillaabso waxa kaa hor taagan in aad horumar gaartid oo lagu matali karo inuu yahay sac kadibna gowrac intaas waxaa noogu idil sheekadii sacaaga gowrac
si aad horumar u gaartid. Haddii aad ka heshay like saar, sidoo kale haddii aad ku cusub tahay channelka, subscribe saar si markasta kuu soo gaaraan muuqaaladayadu. Mahadsanidin.